السلام عليكم waxaa halkan inoo yaalo S8 Plus oo aan u baahanahay inaan saarno screen protect marka waa kana mobileki so inaan screen ka saarno ayaan rabnaa waxaan sameynaynaa marka ugu horeen waxaan soo qaadanaynaa warqadan oo marka qaar ay ku yimaadaan dhalada caadiga ah ee halkan ku jirto okay halkan waxa inoo yaalo dhaladii screenkii caadiga ahayd ee aan rabnay inaan saarno marka ugu horeen maxaa muhiim ah marka waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah marka aan halkan iska geysano okay waxyaalaha ugu muhiimsan waxa kamid ah inaad ugu horeen ka fiiqdo mobilka dhalada markii aad ka fiiqaysidna ha isku dayin in aad xoog ugu fiiqdo waayo hadii uu jajabo waxa dhici karta xataa jajabkaas in uu aragtida indhahaaga ama uu ka gaaro indhahaaga marka isku day si qurux badan oo smooth ah inaad ugu fiiqdo marka dhalada halkan uu dhan ka buduqsan yahay halkan traga kaga jiro marka ma ahan dhalada oo gudaha ma ahan ee dhaladan waa midka screen protector-ka waxaan ugu talagalnay qof walba ee u baahan inuu dhala saarto inuu asiga saaran karo waayo dadka badankooda qaabkay dhalada u saaraan waxa dhici karta inaadan adiga ku qanacsaneyn tusaale ahaan hadda anigoo kale markaan iska soo qaado kuma kalsoonin qof kale inuu dhalo aniga mobilkayga ii saaro sababtoo ah qofka qaabka oo saxda ah iguma saarayo wuxuu u saarayaa si aan aniga ku qanacsaneyn marka aniga waxaan jeclahay inaan aniga ahaan saarto marka dhaladan ka fiiqeena oo ujeedaa oo ii fiiqmay dhaladii ma sha Allah okay mobilkii oo qaleel ayaa halkan yaalo marka shuruudaha waxa kamid ah marka meesha aad dhalada ku saaraysid inay ahaato meel nadiif ah oo aanan dabayl iyo wax noocaas aan ku furneen okay marka dhalada aad soo bixisid waxa ku soo baxayo labadan shay iyo dhalada marka labadan shay ayaad waxa ka bilaabaysaa midka koowaad okay dhaladii waa kana waad u jeedaan okay waxaan ka bilaabaynaa marka midkan koowaad fadlan iska ilaali inaad macnaha meel oo dabayl leh inaad ku sameyso isku day inaad meel nadiif ah aad joogto oo aan dabayl iyo wax noocaas aan lahayn marka mobilka waxaan ku tirtireynaa midka koowaad oo ah mid alcoholada wadato okay marka sida tan aad u dhamaysid waxa sameynaysaa warqada qabo wareeji sababtoo ah dhaladii haday jabtay ayaa dhici karta marka meelahan inay ku halawday oo ku galo inta marka qabo sida kale hadana sidaan u tirtir si uu u noqdo macnaha mid smooth ah oo nadiif ah okay kan waa aan tirtirnay halkan ayaan dhigaynaa midkan kale ayaan fiiqayaa kana marka waa tray oo ah waa adiga t-shirt ama waaye ama napkin qof sida uu yaqaano okay marka waan ku masaxayaa si nadiif oo ugu noqdo mobilka okay wadarkaysa mobilkii wuxuu ku soo baxay si nadiif ah marka iska ilaali caro iyo wax noocaas inay ka gasho marka hadhow waayo mobilka marka dhalada gelisid carada waxa ka dhex arkaysaa mobilka dhexdiisa ayaad ka arkaysaa okay mobilkii waa inoo nadiif waa inoo diyaar kaliya waxa inoo dhiman kaliya inaan ii sheeg aan kaliya saarno dhaladii okay sidoo kale waxaa muhiim ah inaad haysato geedahan inaad haysato hadii aadan haysanin waxaad isku daydaa inaad ka doonato qoladan oo mobilada iyo waxyaalo noocaas ah haya waayo waxyaalo badan ayuu ka saacidayaa okay marka maxaan sameynaynaa marka kan halkan inoo yaalo mar labaad ayaan iska hubinayaa inuu nadiif yahay in kala sababtoo ah markan waxaan rabaa inaan saaro dhaladii okay mobilkii waa inoo nadiif maxaan sameynaynaa marka okay waxaan sameynaynaa dhalada gees ayaa ka soo fiiqaysaa marka qof cijo leh ayaa aad ugu fiican waayo aniga cijo ma lihi laakiin waan isku dayayaa ilaa ay xad inaan fiiqi karo
okay maxaa sameynayna marka dhalada marka sida tan u saarto waxa muhiim ah marka kaamirooyin ayaa halkan leeyahay sensor S8 ka oo kale inaad kula aadiso kaamirada marka wax yar wajiga ayaan u dhaweynayaa si aan u arko okay si nadiif ah ayaan u saartay waad u jeedaa okay maxaan sameynayna marka sidan ayaan u toosinayaa mobileka kadib waxaan sameynaa dhaxda ayaan ka kala baraa ila socoyaa dhaxda ayaan ka kala baraa waayo dadka waxay sameeyaan sidan ay u qabanayaan saas ay yeelayaan waa qalad waa inaad dhaxda ka kala bartaa dhinacana gooniya u xalinaysaa dhinacana gooniya u xalinaysaa marka ila soco fiiri okay meel yar yar waxa ka gali karo dabeelo yar yar ilaa waxa rabtaa inaad isbuubsiiso marka waxa ogaataa mar walba oo aad sheegi aad juhdi ama aad waqti geliso waxa ku sahlanaanayso wax nadiif ah oo aad u qurux badan inay kaaga soo baxdo marka almost isku day inaad waqti badan geliso si uu dhaladaada kuugu soo baxo si nadiif ah marka isku day markaad adiga saaranaysid iyo markuu qof kuu saarayo haddaad iska dhaadhiciso qofkaas marka uu kuu saarayo inuu ka fiican yahay adiga waxa ogaataa always qofkaas kaliya ayaad mar walba u cadibnaanaysaa marka mar walba isku day inaad adiga waxaaga adiga saarato sababtoo ah qof walba wuxuu leeyahay joyce-ka uu leeyahayna waxay tahay marka inuu asiga uu helo qaab qurxoon marka isku day qaab qurxoon qof ma kuu sameyn karo laakiin adiga waa samaysan kartaa oo adi ahaan waad isbari kartaa sida qurxoon iyo qaabka qurxoon marka isku day always inaad ku dadaasho inaad adiga saaran karto wax alaala waxaad adiga u baahan tahay okay waa arkaysaa intaan jaawaan kasoo dhammaanay intaa iga hartay almost okay waxaa arkaysaa marka in mobilkii Java uu diyaar inoo yahay marka waa arkaysaa sakana yar ayuu inaga qaato okay waxaan sameynaynaa marka waan soo masaxaynaa markaan soo masaxno waan ku tusaa marka waa inaa haysataa maro baatiya marada baatiga ayaad ku masaxaysaa okay waxaa arkaysaa marka haddeertaan haddii aan ku dhahno mobilka si fiican u fiiri waxaa arkaysaa inuu yahay mobile aad nadiif u ah oo haddii aad fiirisidna uu noqonayo in dhala uusan saarneyn aad ka dareemaysid sidoo kale marka qaabkan waa qaabka ugu fudud ee aad markaas mobilkaaga aad ku saari karto dhalo adigoo isticmaalayo gacantaada iyo aqoontaada iyo khibradaada waa anigoo ah Cabdiweli Maxamed